howlaha ugu waaweyn ee laga sugayo hoggaanka cusub ee Soomaaliya inay go'aan ka gaaraan waxaa ka mid ah sida laga yeelayo heshiiskii bishii Febraayo ee sanadkan uu wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed la saxiixday shirkadda Coastline Exploration. shirkadani waxay la wareegtay shirkaddii Soma Oil and Gas. maalgashadayaasha ku jira guddiga maamulka ee shirkadda Coastline waxay sidoo kale maamuli jireen shirkaddii Soma Oil and Gas. sidoo kale madaxweynaha xilligan talada haya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ahaa madaxweynaha xilka hayay markii bishii Agost sanadkii 2013 ay Soomaaliya heshiiska saaminta shidaalka la saxiixatay shirkadda Soma Oil and Gas. haddaba maxaan ka baran karnaa taariikhda saaminta shidaalka maxaasan la gudboon hoggaanka dowladda cusub. Soomaaliya waxay sanadihii ugu dambeeyay ku hawlanayd dejinta sharciyada shidaalka, dhismaha hay'adaha ku shaqada leh kheyraadka dabiiciga ah iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka. hawshan waxay la kulantay caqabado badan kuwaasoo qaarkood ay ka imanayeen aqoontii farsamada iyo awooddii dhaqaale oo yarayd iyo hanaanka loo mari lahaa oo ay hareereeyeen maamul xumo. ugu yaraan waa sida ay ku doodayaan khubaro dhinaca shidaalka ah oo Soomaaliyeed. hase yeeshee safarka soo saaminta shidaalka waxa uu ahaa mid dheer oo in ka badan 110 sano ka hor ka bilowday waddanka ilaa haatanna aan foosto shidaal ah laga kaban. Cabdulqaadir Abikar Xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah waxaana uu wax ku bartay Mareykanka isagoo aqoontaas uga soo shaqeeyay wadamada Sacuudiga, Maleeshiya iyo Soomaaliya oo uu wasaaradda batroolka iyo macdanta ka soo ahaa agaasimaha farsamada. waxaa sidoo kale uu xog badan ka hayaa taariikhda shidaalka Soomaaliya oo uga warramay galka baarista. xogtaana hadda ka bixin doono su'aasha jawaabteeda waa xog ka timid waa hore waqtigii Ingiriiska 1911 waxaan ka hadlayaa British Somaliland Protectorate nin la dhihi jireen O'Brien oo chief maarti ka ahaa Berbera joogay ayaa meel la dhaho mataqaanaa Bixindule ee Berbera koonfurteeda ayaa waxaa laga arkay meel batroolka uu ka soo baxayo si dabiici ah dhulkuba ka soo baxaya. arrintii la report gareeyay taas waxay ahayd 1911 marka waa taariikh aad iyo aad u hore 100 sano iyo xoogaa 110 sano hadda laga joogo 112 sano meelahaas oo kale ayaa maanta laga joogaa. 1913 sidoo kale marka meeshii wax lagu arkay ayaa la daba kacay waxaa yimid mataqaanaa nin geologist ah Ingiriisi ah ayaa meeshii maap gareeyay waa la hubsaday. ka bacdina 1920 the Anglo-Persian Oil Company oo ka shaqeynaysa Iran oo Ingiriisi oo caan ka ah bariga dhexe sida Iraq iyo Persia Iran ayaa Soomaaliya ku soo wareegtay 1920 meeshii Paris iyo mataqaanaa ay keentay. xogtan waxay ku qoran tahay riboorradii Borislav Kaminov 1977 ee wasaaradda macdanta iyo biyaha Soomaaliya asagoo u shaqeynaya waa xogii uu qoray ayay ku taalaa. marka laga soo gudbo oo aan nimaadno mataqaanaa koonfurta Soomaaliya oo Italian Somaliland ahay iyadana shaqooyinkeedu u xoog badan waxaa bilaabaya diyaarintii Carta Geologica della Somalia ee della Ogaden oo niman Talyaani ah ee ka shaqeeyay 1936 markii dagaalkii uu dhamaaday in the mid 50s 1945 markuu dagaalkii dhamaaday ayaa shirkadihii tirada badnaa ayaa had jeer weerar ay isku soo qaadayaan Soomaaliya oo Talyaani ku jiro oo Faransiis ku jiro oo ku jiro mataqaanaa American u badanna ay yihiin. markii uu bilowday dhaqdhaqaaqa xornimo doonka Soomaaliya dawladnimadiina ay soo dhowdahay sahankii ugu horeeyay ama seismigii ugu horeeyay baaritaankii ugu horeeyay lagu sameeyo shidaal waddanku uu leeyahay goorma la sameeyay dawladda samaysay. shaqadii ugu horeysay waxa samaysay Ajib goor wax yar ka horeysa 1956 baaristii ayaa waqtigaas la bilaabay ka bacdi ceel qodidii ayaa ku xigtay. Ajib oo hadda maanta loo yaqaan Eni shirkad Talyaani ah ayaa waxay ka qoday ceelkii ugu horeeyay Soomaaliya 9 ayaa loo yaqiinay. waxaa ku soo xigay ceel kale oo Cotton Kow loo yaqaan iyo ceelkii Darin Kow iyo ceelkii Hurdiye Kow oo dhammaantood la wada qoday mataqaanaa from 1956 ilaa 1960 meelahaas ayaa la qoday. afartaas ceel waa isku xigsadeen. Talyaanigaana qoday bari ayaa laga qoday Bandarbeela iyo inta u dhaxaysa mataqaanaa isku shuban area waxaa loo yaqaanaa Daroor Valley. dooxada darooreed ayaa ku hormartay ceelashii Soomaaliya la qoday meelihii ugu horeeyay laga qoday.
kabacdi waxaa timid shirkadihii waa shirkadii Sinclair hal shirkad ma ahayn Emarada isu tag shirkado badan ayay ahaayeen Emarada ayaa ku jirtay waxaa ku jirtay Marathon waxaa ku jirtay Conoco saddexda shirkad ayaa isu tagay hal magac ay samaysteen Soomaaliya oo lala xoog leh ayay ku qaadeen oo qodid iyo baaris iyo qodid ah ayagana waxay soo bilaabeen in the late 1950s kontameydii dhamaadkiisii ilaa waxay soo socdeen 1967 waxay qodeen ugu yaraan 20 ceel ayay qodeen oo ay ka qodeen marka laga soo bilaabo meel Kismaayo u dhow